Soomaalida wax la idin carbinaya idin caawinaya cilmi inay idin barataan oo idin noqon xawaaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن دمانتين ميل كستو أجوكتان كسو دوادا مركلا يبربار سما channel وهذا يجير أن يدين كسو باهيو برنامج جدا كسابسان بربارين تايا تربية دواناكسن عرورتا هدي عد نوغو حسوب تاي سبسكرايب سار سادوغا من نقطة والدين تايا صحابتا نوغو حيران هدي أدورا نولا جوكتينا وادكو ماتسان تاي جوكتان كاغا قنباليلك فرصاد uga warhayso hadba wixii cusub ee kusoo biira barbaarsame channel markan iyo mowduuceena waxa aynu kusoo qaadan doonaa ilmaha waqtiga guriga lagaga tagi karo imise jir marka uu yahay ayay suurtagal tahay in keligii guriga lagaga tago inta badan waxa aynu social media ku arkaynaa ama aad ka warhaysaan in caruur yaryar oo guriga lagaga dhex tagay had iyo jeer ay la kulmaan waxyaabo aan fiicnayn ama isla markaas waalidka oo kale ay ka raagaan ama uu u yimaado booliis markaas waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan qurbaha markaan sidaa leeyahay dabcan ilmuhu marka uu ku nool yahay wadankii hooyo waxaa laga yaabaa inaanay caruurta inta badan keligoodba ahaanin ehelkii baa jooga qaraabaa joogta asxaabbaa joogta jaar baa jooga laakiin marka qurbaha lagu nool yahay noloshu way ka duwan tahay sidaas oo kale ilmuhu iyo waalidku waa iyagoo keliya haddiiba xataa ay jaar leeyihiin jaarkoodu inta badan ma noqon karo qaar lagaga tegi karo ama kuu ilaalinaya amaba dadka soomaalida ku cusub qurbaha maba isfahmayaan dadka jaarkooda ah markaa caawimo maba weydiisan karaan waxa kale oo intaa u dheer hooyooyinka soomaalida in ay yihiin qaar caruurtii keligood korsanaya tusaale ahaan wadankan anigu aan ku noolahay oo kale jarmalka waxaa aada ugu badan hooyooyinka keligood caruurta korsada markaa ay kala maqan yihiin aabbayaashii ha noqdaan in ay kala tegeen ama ha noqdaan inay gobollo kale nimanku ka shaqeeyaan iyaguna ay meel kala degan yihiin taasi waxa ay keentaa in ay culays aada u badan hooyadii ku noqoto in ay 5 caruura 4 caruura 3 caruura 2 caruura ay mar walba marka wax yar u baahato isdaba jiido ama ay banaankii la tagto sidaa darteed waxaan hadda doonayaa inaan halkan idinkula wadaago mararka ama xilliyada ama intee in leeg ama da'dee ayaa la ogol yahay ilmuhu inuu guriga kuusii joogi karo adiguna aad wax soo qabsan karto haddii haddaba aynu u gudubno sharciyan wadanka Jarmalka sharciga uu dhigayo ilmaha marka uu imise jir yahay ayaa guriga lagaga tegi karaa waxa ay sheegayaan ilmaha haddii uu yahay 4 jir haddii ilmahaasi uu yahay ilmo 3 jir ka yar haba yaraatee xataa inaan lagu aamini karin inuu qolka kale keligii ku ciyaaro waa inay hooyadu mar walba isheedu ay dul taagnaato yacnihii dul taagnaato waxaan ka wadaa in ay ka warhayso tusaale ahaan haddii ay kijada ku jirto oo kale ilmuhu qolka ku ciyaarayo ama caruurtooda kale la ciyaarayo in aanay noqon mid saacado ku jirto halkaas ee ay ilmaha yar 5 daqiiqo 10 daqiiqaba ay soo eegto xaaladiisu siday tay kana warhayso marka haddaba taas laga soo gudbo ilmaha 4 jir marka uu soo gaadho ilaa 6 jir waxaa la ogol yahay inuu qolka ku ciyaari karo ama ku ciyaari karo meel hooyadii iyo aabihii ka dhow yihiin oo ay markaa haddii wax la kulmaan isla markiiba ay wax ka qaban karaan waxaa la ogol yahay 15 mirir ilaa 30 mirir
inuu ilmahaasi joogi karo meel ka yara durugsan halka hooyadii iyo aabihii joogaan. tusaale ahaan haddii gurigaagu uu leeyahay beer oo kale, adigoo guriga ku jira inuu ilmuhu beerta xagga hoose ku yara ciyaari karo muddo 15 daqiiqo ah, ugu badnaan 30 daqiiqo, isla markaasna aad u tagto ka soo kaxayso ama ka warhayso. intaas marka la joogo, ilmuhu haba yaraata keligii guri lagama tegi karo. waxaad arkaysaaba in lagu yidhi indhahaagu yaanay ka dheeraanin, macnaha waa inaad aada uga warhayso. waxaa loo soo gudbay caruurtu marka ay gaadhaan xilliga iskuulka ee ay 7 jir noqdaan, intee la ogol yahay inay joogi karaan guriga, maxaana sababaya ama sababtee ayay ku joogi karaan. haddaba waxaa la yidhi sida ku taala shuruucdan waddankan, ilmuhu marka uu 7 jir soo gaadho waxa uu joogi karaa guriga saacad ilaa saacad iyo badh ayuu keligii guriga ku ahaan karaa oo uu joogi karaa. haddaba ilmaha 7 jirka ah ee saacad guriga ku joogaya, inta aad ka imanayso ama inta aad muraad soo qabsanayso, waa ilmihiiba meesha taala. waxaa la daba dhigay oo shuruud ah in uu ilmahaagu yahay mid mas-uuliyaddaas qaadi kara. hooyadu haddii ilmaheeda ay og tahay inuu yahay ilmo qalqaali ah, ilmo aan fadhiyahayn, ilmo ma garanaysaa aanay ku kalsoonayn inuu mas-uuliyadda keligii inuu ahaado qaadi karo, waa mamnuuc inay kaga tagto guriga oo ay tidhaahdo waxaa la yidhi 7 jir wixii ka weyn waa lagaga tegi karaa, marka ana waan kaga tegayaa. taas waa la diiday. waxaana la yidhi waa inuu waalidku uu ilmihiisu ahaado mid uu ku kalsoon yahay oo yacni mas-uul ah, ilmo mas-uuliyadda guriga inuu keligii sii jooga ah qaadi kara. ta kale waxaa la raaciyey in ay waalidku ilmaha kala sii hadlaan oo ay u sheegaan sababta uu u joogayo guriga, in ay wargeliyaan oo ay u sheegaan ayaa la carabaabay ama la qoray. waxa kale oo la sheegay oo la yidhi waa in ay waalidku ilmahooda la dardaarmaan, waa inay waalidku ilmahooda u sheegaan iyagoo ogba xataa inuu yahay ilmo mas-uul ah, yacni ilmo degan aan waxba sameynayn oo ku kalsoon ilmahooda, haddana si kastaba waa inay ilmaha ku yidhaahdaan kijada ha gelin oo ha shidin waxyaabaha dabka ah, xataa hadday gaajo ku hayso. waa inay iyagu kasii taxadiraan si aanay ilmahan gaajo u qabanin, kadibna aanu isku dayin inuu dab shido, oo ay wixiisa marka horeba usii diyaariyaan, isagana ay kala dardaarmaan inaanu taabanin meelaha dabka ee guriga oo dhan. ay u sheegaan meelahaasoo dhan intaa waalidkii maqan yahay, iyo sideedaba inay mamnuuc yihiin, hase ahaatee markaa waalidku uu maqan yahay ama uu kasii tegayo uu aada ugala sii dardaarmo. tusaale ahaan inay aada ugala sii dardaarmaan inaanu ilmuhu tegin dhinaca balakoonka, meelaha guryaha marka uu gurigu dabaq sare yahay oo kale, kolley way fahmayaan dadkan balakoonka Soomaaliya inuu barando ku noqonayaan jecelahay. barandaha yaree furan ee ay ka dhici karaan caruurtu weeyaan ujeedada macnahaygu, hadalkaygu, inaanay albaabkaa furin oonay tegin una bixin halkaas, inay u sheegaan. waxa kale oo meesha ku jirta in waalidku aanu caruur yaryar oo sanad kala weyn islamarkaana fara badan aanu guriga hal mar kaga wada tegin, xataa haddiiba ay gaadhaan da-daasi lagaga tegi karo. waayo caruurtu markay fara badan yihiin dhaqaaqooda iyo waxay samayn karaana uu fara badnaanayaa. maxay haydey taasna waa laga digay. ilmaha 12 jirka ah
waxa la ogol yahay iyo wixii ka weyn ah inuu joogi karo 4 saacadood. ilmaha 12 jirka ah waxaa la ogol yahay inuu joogi karo guriga 4 saacadood. isagana sida oo kale waxaa looga digayaa waalidka aanay la sii dardaarmin, waa inay u sheegaan waxa uu qabanayo iyo waxa aan la ogolayn inuu qabto. ilmuhu markuu 12 jir iyo kulli waa ilmo weyn, wax badan buu fahmayaa. haddana saasay tahay waxyaabaha adigu waalid ahaan aad uga warwaraysa inay dhacaan oo kale, qof walba isagaa ilmihiisii gurigiisa yaqaana siday xaaladeedu tahay. marka waa in waalidku ilmo walba marka uu ka tegayo ula dardaarmo wixii markaa warwar ku abuuraya uu kala sii hadlo. haddaba intaas ayaan idinka soo xiganayaa websaydyada iyo meelaha lagu soo qoro sharciga had iyo jeer caruurta ka hadla. taasna intaas ayay sheegeen, waxaanay mar walba daba dhigayaan in uu waalidku ilmihiisa qiyaaso mar walba. talada barnaamijkeenana waxay noqonaysaa, maadaama meelaha inta badan aynan ka arkayno waxyaabo badan oo guri hooyadii oo ka maqan caruurtii ama gubtay ama wax ka dhaceen, in ay ka taxadiraan hooyooyinku inta ugu badan waxyaabaha ay u baahan yihiin ay meel ku qortaan si aanay u kala ilaabin, markaa aanay ugu dhicin inay gurigii iyagoo yimi oo caruurtii kusoo xareeyey ay haddana is idhaahdaan wax degdega dukaankii uga baahdaan oo ay ku cararaan oo kale. markay adeeg soo sameysanayaan inay adeeg qortaan, oo waxaa markaad degan tahay aad guriga joogto bahal yar ayaa lagu dhejisan karaa gidaarka, hadba shayga markaa aad tabti maqan ayaa lagu qortaa, si aanay hadhow balaq kuugu dhicin oo aanay u imaninba inaad caruurtii guriga kaga tagto. badbaadadu waa ta alle, ilaahay dhammaanteenba hayna wad badbaadiyo, feejignaantuna waa halkeeda. marka intaas ayaan doonaya inaan idinla wadaago. tan iyo kulanti dambe, haddii aad ka hesheen sheer gareeya si uu gaadho waalidiinta kale Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. waxaan idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.